السلام عليكم صحاب هويدي قرحت صوبك العادة وعيكم قلت بليس إيقو صدعين وإلهي عافماتك بكيسيو دمان أصحاب دادنا ويكو قوريودين مسلمين هذا فربضن وحكو لكو قيريود وإذا صاحبتين وأرجع لها حاوشين أنا داي وحكو لكو قيريود وإذا صاحبتين إيقو بديد وأرجع لها وإقرر له وساكا ودبس إلى هالناس والله راح والبا حمر وقبا ودرس جري إقرأ ما يقيري ذا ويقوم توراي بليز يقصد ويدد كماشي كوكيري وذي إلا ونحرسته إذا انت داوع عنه إلا عافمات يسير السلعة سامع لك استحمل كجرا maxaan ku mutaystay aafo naftayda maxaan ku waayay muxuu u gubtay jirkaygu miyaan sabab loo helaynin maxaan galabsaday walaal maxaa qarax layla beegsan miyaanan dhalad ahayn dalkayga miyaan dhex joogin midkaan qaraxii dhigaayo miyuu soomaali sheegan damiirku miyuu shaqayn dhigaygu miyuu dhimayn habaarka miyuusa maqal ilmada quwanaysa ee ka timid hooyada ildaran miyaysa indhihiisu qaban markuu qaraxaasi dhaco miyaad hurda seexataa abaaqda miyaad cuntaa Soomaaliya wax ka dhacay waa ogahay videogan waxaa usoo duubay dadka xamar joogo iyo dhammaan dadka Soomaaliya joogo waxaan leeyahay halkan tacsi ii tiraay midna kamid diray maadaama oo wadankeena ugu yaraan 40 sano tacsi la diraayo tacsi halkaas maxaa ku dhintay qarax baa halkaas ka dhacay dad baa naga baabaa arday baa naga dhimatay maalin walba waxaa leenahay maalin madowey noo tahay maanta dhibkaas aan ugu dhacay laakiin qaladka waxaa la dhahay muxuu u dhacay amal dhase u saxnaa al dhaha I know ina ani wadankeena kaliya wax aan ka sixi karin laakiin hadaa awoodo ina wax ka saxno waa ka sixi laakiin I know ina waxba aan ka bedeli karin waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay wadan fiican nooga dhigo oo nabad leh laakiin videogan sababta usoo duubo koowaad waxa waaye dadka xamar jooga la hadlaaya waxaan leeyahay shacabka waxaan noqotiin shacab xaq ka hadlo waxaan noqotiin shacab foojignaado waxaan noqotiin dad oo xaafad walba qofkii degan qofkii wax wado maadaama waxaan cirka musoo dhicin wax magaalada gudaheeda laga soo abaabulo waayo waxaan noqotiin dad foojigan oo xaafad walba xataa dadka degan haday iska warqabaan qof walba wuxuu sameeynaa la ogyahay qof walba meeshuu ka shaqeynaa la ogyahay ma maleynaa inay oo wax siyaabasan oo kale u dhib badan ay dhici lahayn maadaama qofkii dhib sameyn rabo hadii hore lagu ogaado oo hore laga sheego oo qofkii la xiro already dib ma dhici lahayn marka waa ogaa xamar inay zaaid u weyn tahay waa ogaa inay qofkii socdo iyo qofkii kaleete oo la kala garanay laakiin dadka guriye ku hoydaan guriye leeyihiin waxaa laga yaabaa waalid jiro inuu cungiisa xun yahay inuu cungiisa meel xun ku maqan yahay inuu cungiisa wax xun sameeynaa oo haddana ka aamusan please and please haddii qof Soomaali jooga aad tahay oo wax dhib ah ogtahay mise qof wax dhib sameeynaa ogtahay please dadka la soo socodsiisi liskaga ilaaliyo like waa ogahay inay hadda waxaa laga yaabaa qaraxan qof xamar gudaheeda jooga oo ka warqabay oo ogaa inuu sa sheegin laakiin taas dhib ay leedahay xataa xaqa ka aamusi dhib ay leedahay bari kamaan adeeg ugu dhici karta adi maanta markaa saas oo kale wax uga aamustid oo aadan ka hadlin oo aadan sheegin bari kamaalin qof kale taas oo kale intuu uga aamuso ay adig ugu dhacay waxa shalay dadka uga aamusaysa marka والله ما أخاني وحده لكن إله إذن أمان صدق كل جين لكن وحال كان إذن كوب باقي إن نقطين شعب فوجين أو ضد كيسك إلاليو أو قفل كور قبو لك هدي أو لسكور قبو أنا ما أنت جور هذا جوري هذا قف ككري دان يرس كابولا ككري أو وحي قبطان وحي كشقينا أو جين والعكتي بس أفيريو لب كذا لذا سو والدين ضد كواوين dhalinyarada ardayda kulli waxa leeyahay waxaan noqday dad foojigan oo qof walba fiiro gaar ah u yeesho maadaama ay wixii wax magaalada laga dhex keenay ay tahay cirka muus soo dhicin ileena